Awow waa mid ay ka wada fikiraan rag iyo dumarba qaybna ka ah baadigoobka muhiimka ah ee loogu jiro qofkii nolosha kula wadaagi lahaa. Dadka qaarna waddada way u toostaa, kuwana way ka qalloocdaa iyagoo nasiib uun ku socda ama aan adeegsanayn wax xeelad ah. Balse ka waran haddii aan kuu sheego talooyinka caawin kara inaad shukaansato qofka kugu habboon, kana leexato qofka aan kuu qalmin. Waxaanu muuqaalkeena maanta kuugu sheegi doonaa 3 nuuc oo ka mid ah dumarka kuwaas ay raggu u habboon tahay inaysan nolol la wadaagin ama waqtigooda aysan isaga lumin. Balse intaynan u guda gelin muuqaalkeen maanta, fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga. Qodobka koowaad, dumarka xanaaqa badan. Mid ah habdhaqanada aadka u wanaagsan ee looga baahan yahay ragga iyo dumarka haasawaha wadaaga waa dulqaadka. Labada qofood in muddo ah waxay ku jiraan isbarasho, yacni haasaawid. Barashadaasina labadooda waxay u fududayn kartaa inay cagta saaraan waddadii ay ku yegleeli lahaayeen guri. Haddaba waxaa ku habboon inaad iska ilaaliso dumarka aadka u xanaaqa badan aanan isxakameyn karin. Haddii aad xiriir la wadaagtid gabadh noocaana, waxay kugu eedeynaysaa dhibaato kasta ee nolosheeda la kulanto. Sidaa ay tahay, waxay aaminsan tahay inaad adiga sabab u tahay dhib waliba oo ku dhaca. Qodobka saddexaad, dumarka isku haleeya dhaqaalahaaga. Iyo haweeney noqoto xaaskaaga, waxay kugu yeelanaysaa xuquuq badan. Xuquuqahaasna waxaa ka mid ah xuquuqda dhaqaale. Ha yeeshee marka uu haasaawadiin ka dhexeeyo, waxay kugu leedahay wanaag iyo wax aad u garato. Waxaase jira dumar xilliga haasawaha si buuxda ugu xisaabtama dhaqaalahaaga, qaarkoodna shukaansigooda kumaba ekaado hal qof oo keliya maadaama ay yihiin dhaqaale doon. Ninka ragga ahna kuma habboona dumarka noocaas. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday muuqaalkan. Haddii uu ku anfacay, like saar lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.